أحمد مدوي خلدان ياي كومبليتلي وخلدان ياي ونشرتي وعند مدة إنه بالك لك أمر قادنا أيوه it's not internal Somali outside Somalia إنه قادنا مركين لسه federal بالله خلده dadkii oo dhan suuqaad xisaabtan baa imaaday federal bali adiga waxaad rabtaa prime minister ana waxaan rabaa prime minister noqdo reebel baan ahay adna reebel baa tahay wax taageero qabiil buu hele haddii loo kaco waxaa imaanay ciidankii la soo diray reer buu isu bedeli kana reer buu ahaani bedelkii muwaafaqay ahaan lahayd qabyaalad baa ka dhici tolkii baa fidmaysan dadkii raaci lahaa oo dhan ba wala fidmaysan ogaadeen kale wuxuu kari karayn ما كاري كرو what about others حدي عيدا الله ديرو أحمد مدوي وعاسي قروبي وأنا عاسي قروبي لكن هو هلا أرن سياسة ويكبر على هذا وأرن قبيل ماشي صوغرنا خيركم أجرو سو مالنا وأمد كلي أدون كنول آمن سن قبيل حتى الدين تإسلامك وحكا آمن سن قبيل إلهي وحكا آمن سن قبيل لك الصومالي meel xun bay maraysaa oo arrintu ay taagan tahay ogaadeen daarood banaay ogaadeen banaay hawiyaa u jira oo la baleeyay marka in la doono arrinta xagga laga doono iskugu yeero dadkan war waxaan dhacay wax sheegay halgamaa Soomaaliyeed boqor deeqo macallin Maxamuud Sambul ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaarisa ee caasimadda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya boqorka ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyo sidoo kale in dawlad dhiska Soomaaliya uu caqabad ku yahay nidaamka federalismka oo ay keeneen dalal shisheeye kuwaas oo aan u dareynaynin jiritaanka iyo mustaqbalka dalka Soomaaliya boqor deeqo macallin Maxamuud Sambul oo lagu yaqaano wadaniyad dal jacayl jacayl iyo in uu dadka Soomaaliyeed muddo dheerba u taagnaa in ay noqdaan dad xor ah oo midaysan ayaa sheegay in dawlad dhiska Soomaaliya uu kaliya ku jiro wada hadal isfaham iyo in miiska wada hadalka la iskugu yimaado boqorka ayaa sidoo kale ku tilmaamay wax laga naxo xaaladihii ugu dambeeyay maalmahan ka taagnaa deegaanada Jubbaland isagoo sheegay in maamulka Jubbaland uu hogaamiye Axmed Maxamed Islaam aysan ku soconin wadiiqa sax ah sidoo kalena ay caqabad ku yihiin dawlad dhiska Soomaaliya boqorka hadaladiisii waxaa ka mid ah sida tan arrinta Soomaaliya meel xun bay maraysaa waxaana maamulkaas waxa لكله أجنبي بالكله سوماليا وقلابس كريسة وبربورتي أنا وأنا إن كوجير السياسة ده مردو إلى الحدميه هو جامين هنا بنها وحلو دوني سومالي نزرعه بس أرنتا سومالي هزرعه ويكون نقطة ليت ومنها هو حكومة ميسته وعربتا كمتاي يوروبيان كمتاي فاهمينه marka arintii way qaraxday qaraxina si xun baa loo maamulay maamulka hadda socdo ma fiicna waxay raaceen rabitaanka dadka lidka ku ahaa Soomaaliya midowdo waxa way arin siyaasadeed way ka baxday hadda waa arin qabiil meesha soo galana khayrku ma jiro Soomaalina waa ummadda kaliya adduunka nool aaminsan qabiil حتى الدين تإسلامك وحكي أمسنين قبيل إلهي وحكي أمسنين قبيل لك الصومالي ملح بمريسا مركا كل يودي يقوي إنسان محاكولة مثل أهان لها وحي أهان لهت إنه أرنتا نظام قبيلي لو قد بو لقد دايو أرن سياسة كبسة إن لقد دايو برلمان إن لقد دايو مدعوينة إن لقد دايو first of all reerkii Soomaali ahaa inuu is'aalo inuu Soomaali yahay inuu ahaan hadduu qirto inuu Soomaali yahay marka nidaamka Soomaali ku wada socon karo inay gaaraan maanta meesha ay taagan tahay meel aad u xun waaye Jubbaland waa qayb ka mid ah Soomaaliya waa gobol عشان ما Soomaali burburtay waxay yiraahdeen federal bana federal you see naturally أنا فيدرال بهمبو غير كيبو هالكي غير بو وعاريرو خلاص يدوان ما اسمه راعي كان فيدرال مو وعيد يونيتري government إنه هذا يحكوا حل كري الهاين ما ينراعين so عاسقروق هذا جوبالاند ويوم مرتجيك because دولتها جيرانك وأنا كهرتورا أنسكو هيني الرئيس السياسة ذات باهلك فرصة
ay arrintaa ku yani nagaga hor imaadaan ani waxaan ahaa secessionist ninka waxaan ahaa doonaya inuu ka go'o waddankan ma ahan because kenyan cadow aha ma aha simply waxaan rabaa inaan soomaali ahaado inaan kenya ahaado ma aha saasaan rabay waa waay taasaa markaa arrintaasaa laga faa'iidaystay maanta meesha ay taagan tahay meel aad iyo aad u xun way aabo waxaa weeye mardaam soomaaliya ay burburte nidaamkii lagu xallin lahaa bay khalad ka dhigeen waxay keeneen federal soomaaliya waa 5 gobol bay ahayd british soomaaliya waa la oran jiray italian soomaaliya waa la oran jiray french soomaaliya waa la oran jiray yaa jiray waxa noocaasayto waa jiray waxa anaga aan doonayna israacaan bay ahayd marka haddii uu macnaha arrinta la burburiyey waxayd meeshii laga bilaabi lahaa kama ay bilaabeen federal baan nahay federal dowlad baan sanaynaa dadka heshiis ma aha waa lis dilay so jubbaland garba heshay markaa haddii la taabto ogaadeen dhammaa kici daarood bay maraan daarood ogaadeen mushkilo waxaan jirin it's not true there is no daarood wax la yidhahdo adduunka waa been daarood ma jiro hawiye ma jiro soomaali waa one nation hal qabiil wey laakiin waxaa weeye waxaan sameeyey dowladaha interestka u leh dhulka soomaalida ayaa waxaan sameeyey oo xiisadaa geliyey marka xasan wuxuu sheegay in la qabto maxamed mudane wuxuu sheegay maxamed waa magaalo yar kismaayo punta jubbaland haddii la taabto waxaa imaanaysaa waxaad moodaa hadda ogaadeenka inuu ku kala qaybsan yahay waa aragtay ku kala qaybsan yahay marka waxaa dhici kartaa in dagaal sokeeye dhaco waxaan dhihi lahaa xasan inuu yara bedelo u leexdo dhanka maslaxadda inuu raadiyo soomaali odayaashii u talin jiray in laga daayo dadkan u cararay yurub iyo america cararay in laga daayo siyaas oo dhan laga daayo inay soo gelin waxaan la sheego baarlamaanka in laga daayo asalka in loo noqdo originally in loo noqdo la wada tashado war ma israaci karnaa soomaali baan noqonnaa mise masaan xaafalnaa saasay ku haburaan leed bedelkii hala soo qabto ciidan baan ku dilayaa til dheeraha halka ay ka gashaa fiicnaan leed xasan xaq buu ku tagan yahay he's the leader now axmedna axmed waa branch waa chairman oo gobol waaye waa jubbaland waa kismaayo markii la yidhi soomaali yaa marka right leh waxaa right leh ninka madaxweynaha lagu magacaabay axmed ma laha waxba ma laha waa simply member buu ka ahaa si ku noqdayba waa khalad waaye ma ka hadli karo arrinta khuseynayso midnimada ummadda soomaaliya ma ka hadli karo laakiin maadaama hadda arrinta halka loo raray oo arrintu ay taagan tahay ogaadeen daarood banahay ogaadeen banahay hawiyaa jira oo la baleeyahay marka in la doono arrinta xaggaa laga doono iskugu yeero dadkan war waxaan dhacay axmed madoobe khaldan yahay completely waa khaldan yahay wuuna sheegtay waxaad moodaa inuu beel kale ka amar qaadanayo it's not internal Somali outside Somalia inuu ka qaadanayo saas suurtooda dadka faraha gelle waa Europeanka iyo America iyo Arab saas weey these are interested parties America iyo Europeanska iyo Arab waxaana u daran Arab danta ugu jirto waa maxay yeah danta ay doonayaan waa maxay we don't know why waxbaa la sheegaya we don't know لكن they are interested waxaa maanta aad burburinaya Soomaaliya waa Arab ayaga u soo gadbanaya diinta islaamka even diinta islaamka waa bedeleen noocyo kale waaye marka America iyo Europeanka interest u leeyihiin أنا waxaan galay siyaasad 1946 ayaan bilaabay siyaasad ilaa maanta hadda waxaan ku jiraa halkan 34 years halkan ma ka bixi dhibaato badan aan soo maray jeel badan baan soo maray both
ingiriiska kenya iyo soomaaliya inta way xiraayeen ujeedada waxay soomaaliya doonayaan midnimada that's all wakaan ku leeyahay waxaa hadda ficnaan lahayd madaxweynaha xasan sheekh inuu arrintan ka bilaabo inuu raadiyo inuu ka daayo one man one vote inuu ka daayo election inuu markaa bilaabo raadiyo soomaaliya say iskugu imaan lahayd inuu raadiyo dadka asalka u ah muxuu ahaa in laga daayo dadka u cararay america iyo carabiya kuwa gale taloo dhan laga daayo because interest kale waxaa soo gale financial interest ee soo gale dadkii waxay ku leeyihiin xiisad maal lacag marka dadka ay taabanayso waa dadka ku jira gudaha inuu la tashado baa habboonaan lahayd inuu la tashado nin keliya kuma saabsana the whole nation a problem noqde soomaali waa burburtay yaa burburiye see u burburtay you see waxaa weeye 1961 baan soomaaliya aaday anigu delegation wato the first delegation from NFD annaga soomaaliya ma nihin reer NFD mixed nahay boran iyo soomaali afgalaawiga ku hadla rendille afka ku hadla af soomaalida ku hadla soomaali waxay noo sheegtay madaxdii markaa jirtay soomaaliya inay khatar ku jirto waa 1961 waan yaabay xulahay markaa because waxaa weeye inayna israaci keli doonin inay dhibaata imaan doonto dhibaatada waata la imaatay marka ma dhihi karno axmed madow kootay nafaas helay wuxuu helay jawiga yaalla arkay ma arkin ummad midaysan ma arkin wuxuu arkay wax oo mushkilaysan mushkiladu ka faa'iidaystay I don't think inuu ahaa nin soo galay siyaasad waxbaa lagu sheegi jiray waxay ahayn wadaadadan mataqaanaa la sheegi jiray oo meeshan maxaa dhihi jiray hadda raaski amboni area that areada waa area urtay al-shabaab nimankaasaa ka buuxaan waa area aan fiicnayn bay ahayd waa carab ba keentay waxaasaytu waa tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh in uu ra-iisul wasaare iyo taliyaha ciidanka lugta soomaaliyeed u magacaabo beesha aad boqorka u tahay maxay kaga dhigan tahay may xaq buu leeyahay ninka waa madaxweyne istiilnaaw habka ku socdaan baa khalad moogiye xaq buu leeyahay is now the president of Somalia inuu magacaabo ninku doono ciidan ama was prime minister right uu leeyahay laakiin yaa maqlayaa because dadkii waa fidmaysan yahay tolkii waa fidmaysan dadkii raaci lahaa oo dhan ba wala fidmaysan ogaadeen kale wuxuu kari karayn ma kari karo what about others you see waa afar baan malan Soomaaliya shan baa ahaan jirtay waxay ka sameeyeen afar iyo bar kulli waxay ka dhigeen independent inuu u taagnaado madaxweyne uu qabaa heblow reer hebel madaxweyne uu qabaa baydhaba madaxweyne qabtaa heblow madaxweyne qabtaa you see problemka haysto xasan waka xasan dhib baa haystaa dhibka markaa sidoo uga bixi karo kale waxaa weeye inuu dib ugu noqdo Soomaaliya kaale yahay maxaan sameynaa soo sidiisa ah uu yeero marti qaado la hadlo la tashado saas ku fiicnaaneed ma baa la jireen mudnimada hadda maxaa arkaysaa idinka maxaa arkaysaa see ku dhici kartaa one man one vote see ku dhici kartaa si khaylaan la geliyey si hadda waxaa weeye haddii ciidan loo diro axmed madoobe waa caasi garoobe waa nin caasi garoobe laakiin wuxuu helay wax taageero qabiil buu helay haddii loo kaco waxaa imaanay ciidankii la soo diray reer buu isu bedeli kana reer buu ahaani bedelkii muwaafaqay ahaan leed qabyaalad baa ka dhici yaa meesha ka dhici qabiilad baa imaanaysaa waxaa sii burburayaan marka before aan waxaa la samayn waxay in u leexdo yara joojiyo election inuu joojiyo u yeero Soomaali kaala yahay aan tashano taraisiya inuu yeero taraisiya maxaan samaynaa Soomaaliya taraisiya Soomaali tala bixiso kana daayo Soomaalidu aragtay dibadda America France
روش وهذا عرب كوين يسوق السياسة هذا يسوق قران ولا سياسة الصومال ما يشيلسو أول بريزيدنت قال تلني بريزيدنت وحاوي راي بقول هيز ذا بريزيدنت نظامك وكل عضو ورانا الخلد markii la dhisay federalka baa la khalday dadkii oo dhan wuxuu suuqaat xisaabtan baa imaaday federal bali adiga waxa rabtaa prime minister ana waxa rabaa prime minister noqdo reebel baan ahay adna reebel baa tahay ma dhici karto marka waxa weeye inuu la tashado soomaali weyn isku weero akhyaarta odayaashii oo yiraahdo bal taliya dhibkan ayaa lahay waxaan uu wato oo right ah waana right لكن هذا ودي بقولكتو ما في عنان لبتاعنا لا